Marinta Caalamiga Soomaaliyeed ee sanadlaha oo si weyn loo soo qaban qaabiyay ayaa waxay ka dhacday magaalada London waxaana ka soo qayb galay xaakimka caanka ee Soomaaliyeed Abdifitah Axmed Yuusuf oo ah madaxweynaha maxkamadda cadaaladda ee Hague. Dhanka kale waxaa ka soo qayb galay Ilhaan Cumar oo kamid ah sharci dejiyaasha wadanka Mareykanka isla markaana ah gabartii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo muslim ah ee xilkaasi loo doorta. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka cusub ee Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska agaasimaha guud ee telefishinka Cable qaaradda Yurub mudane Maxamed Yaasiin iyo ambassador Afe oo ah u qaabilsanaha UNHCR arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May uu soo dirtay fariin oo meesha laga akhriyay guulaha ay gaareen ummadda Soomaaliyeed. qaar ka mid ah waxaana goobta ka akhriyay maamulaha ISA mudane Maxamed Shire waxaana ka mid ahaa dadkii goobtan ka hadlay hadalladoodii. It is important to know and take pride in your Somali origin and your Somaliness. In this beautiful, proud people who easily recognize each other wherever they may be, who enjoy a shared, expressive, and flowery, poetic language. So I feel really honored to be able to be here with you all. Again, I will say good evening. It's an honor to be here today, seeing the great work being done by Somalis across the globe, which has been truly inspiring. Today has offered us an exciting opportunity to pay tribute to the invaluable contribution International Somali Awards has made to elevating Somali's successful stories. I'd like to read a message from Prime Minister Theresa May. I am honored to send a message in support of the International Somali Awards 2018 and to take this opportunity to express my deep admiration for the community's resilience and fortitude. aad runtii caawa ugu faraxsanahay inaan International Award Somali Award ceremony aan caawa goobjoog ka ahaada ka soo qayb gala wax ka bixiya hay'adda aan ka tirsanahayna ee runtii qayb ka qaadata abaabulkeeda waxa weeye fursad aad qaali u ah rajo u abuuraysa shacabka Soomaaliyeed qasuusan dhalinyarada kuwa gudaha Soomaaliya ku nool iyo kuwa qaxootiyaha ku ah inay Soomaalidu walaalahood oo caalamka intiisa kala maaragtay jooga inay wali wadankada ka fikirayaan rajana ay ka qabaan inay wadanka dib u soo hagaaga. runtii waa maalin aan isleeyahay ku dayasho mudan weeyaan waan u hambalyeynaa hay'adda anti-tribalism movement iyo Somali International Award oo soo qaban qaabisay oo soo suurtagelisay caawa ay ku soo dhamaato jawi wanaagsan oo farxad leh. dabeelaha caafimaadka daryeel iyo degenaansho dalkayga maxaa diiday Abaal Marintan Caalamiga ee Soomaaliyeed ee sanadlaha ayaa ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan. Abdifitah Shirwac, telefishinka caalamiga Cable, magaalada London.